wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe ee maanta soo gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa qayb ka ah xubno ka tirsan golayaasha wasiirada iyo baarlamaanka maamulkiisa iyo mas'uuliyiin kale waxaana garoonka diyuuradaha Cadaado ku soo dhaweeyay madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo xubno ka tirsan maamulka Galmudug sidoo kale soo dhaweynta wafdiga ka socda Jubbaland waxaa ka qayb qaatay ururada bulshada iyo ciidamada ammaanka iyadoo munaasabad soo dhaweyn loogu sameeyay xarunta madaxtooyada ku meel gaarka ah ee Cadaado madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in muhiimad uu leeyahay socdaalka maanta wafdiga madaxweynaha Jubbaland Cadaado ku soo gaaray ku soo dhawaada Galmudug runaantii safarkaaga annaga macna weyn ayuu noo u fadhiyaa gaar ahaan xilli magaalada Kismaayo loo balansan yahay madashii wada tashiga Soomaaliyeed inaana soo booqato oo noo sharafto inaana soo booqato macna weyn iyo sharaf weyn ayay noo tahay oo ku soo dhaweynaynaa dowlad goboleedka Galmudug waxay ka mid tahay dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ee la aasaasay kadib markuu dalku qaatay nidaamka federaalka ah dowlad goboleedka Jubbaland waxay ka mid tahay dowlad goboleedyada laga horeeyay ee xagga federalismka nooga horeeyay waxaan rajeynayaa in labada dowlad goboleed fursad ay u noqoto safarkan iyo booqashadan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in safarkiisa Cadaado uu yahay mid lagu xoojinayo calaaqaadka dowlad goboleedyada waxyaalaha safarkayga hadda kow ka mid ah waxay ahayd inaan soo gaarsiiyo madaxweynaha iyo maamulka Galmudug arrintii aan u ballansanayn oo ahayd khilaafkii ka dhacay gaalkacyo oo aan doonayno gogosheedu inay hadda Kismaayo taalo iyadoo aan ku xidhnay shirka kale oo la doonayo in bal siyaasiyan waxa Galmudug iyo Puntland hawshooda inaan iyada soo afjarnaa dilayna waxaa kaloo yaalla oo ay noqotay dowlad goboleedyada meesha keliya ka iman karayay ee waqtiga u helay madasha lagu balansan yahay Kismaayo in lagaga hadlo sanadkii awal la sii sheegay 2016 loo jiro hadda aynu joogno ee lagaga hadlayay mustaqbalka Soomaaliya wajiga uu yeelanayo inay noqoto dowlad goboleedyada meesha aan uga gudbinayo ama risaaladaas aan ka gaarsiinayo ay suurta gashay inaan imaado inay noqoto Cadaado anoo waxyaalo badan xeerinaya oo daraadda siyaalo badan